Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ninkani muddo 18 sano ah ku noolaa garoon diyaaradeed, waxaana arrintani sabab u ahaa xaditaankii laga xaday boorsadii ay ugu jireen warqadihiisii aqoonsiga. Ninkani waxaa lagu magacaabaa Mehran Nasiri, waa muwaadin Iiraani ah oo dowladdiisa dayacday. Wuxuuna dhashay sanadkii 1945, wuxuuna mid ka mid ah jaamacadaha Ingiriiska ka bartay culuumta dhaqaalaha. xilligaasi waxaa dalka Iiraan maamulayay Pahlavi Shaahi Iiraan, oo aakhirkii xukunkiisa wajahay mucaarad xoog badan. Mehran ayaa ka mid ahaa dhalinyaradii ka soo horjeeday dowladda, wuxuuna qayb ka qaatay banaanbaxyo lagu qabtay carriga Ingiriiska, kuwa oo ka dhan ahaa dowladda Iiraan, isla markaana ay soo qabanqaabiyeen ardayda Iiraaniyiinta ah oo wax ka baranayay jaamacadaha dalka Ingiriiska. kolkii ay maalmo ka soo wareegatay mudaharaadyadii ayuu Mehran ku soo laabtay dalkiisa Iiraan. markii uu ka soo degay airportka Tehran, waxaa Mehran gacanta ku dhigay sirdoonka dalka Iiraan, waxayna ku tuureen xabsi qarsoodi ah, halkaas ay ugu geysteen jirdil xoog leh. aakhirkiina way iska daayeen, laakiin waxay ku amreen inuu dalka degdeg kaga baxo. Mehran ayaa markii la soo daayay ka soo cararay dalkiisa, wuxuuna aaday Yurub. talabaad badan oo maangelis siyaasadeed ayuu ka dalbaday qaar ka mid ah dalalka reer Yurub sida Talyaaniga, Jarmalka, Holland iyo Faransiiska, laakiin nasiib darro way diideen inay Mehran siiyaan maangelis siyaasadeed. markii dambe wuxuu galay dalka Ingiriiska, oo ahaa dalkii uu wax ka bartay, wuxuuna Mehran dowladda Ingiriiska codsaday inay siiso maangelis siyaasadeed, laakiin UK waxay ku biirtay dowladihii reer Yurub ee u diiday Mehran in ay siiyaan maangelis siyaasadeed. Mehran ayaa kolkii dambe oo ku beegnay sanadkii 1980 wuxuu maangelis siyaasadeed ka helay dalka Belgiumka, wuxuuna Mehran dalkaasi ku noolaa muddo 6 sano ah. laakiin kolkii dambe wuxuu go'aansaday inuu u wareego dhanka dalka Ingiriiska, maadaama waddankaasi uu wax ka bartay afkiisana ku wanaagsan yahay. Mehran ayaa tareen kaga safray dalka Belgiumka, wuxuuna galay magaalada Paris, kadibna wuxuu ka dhoofay airportka Paris ee Charles de Gaulle, wuxuuna ka degay midka London ee Heathrow. laakiin nasiib darro wuxuu waayay dukumiintiyadiisii aqoonsiga, taa oo keentay in dib loogu soo celiyo airportka Paris. Mehran ayaa markii uu ku soo laabtay airportka Paris u sharaxay saraakiisha Faransiiska ee maamula airportka Paris wixii ku dhacay iyo qaabkii uu waayay boorsadiisii, wuxuuna ka codsaday madaxda airportka inay u ogolaadaan inuu gudaha u galo magaalada Paris, laakiin saraakiishii way diideen dalabkiisa, waxayna ku dhaheen ilaa aad la imaanayso aqoonsigaada halkan ayaad joogaysaa. Mehran ayaa saacado, maalmo iyo bilo soo mareen, laakiin weli ma helin wax aqoonsi ah oo kaga baxo airportka. saraakiishana way ku wareereen xaalka Mehran, waxayna garan waayeen qaabkii ay kula macaamil lahaayeen. Mehran ayaa quudan jiray cuntada ay soo reebaan rakaabka musaafiriinta ah, wuxuuna jiifin jiray kuraasta ay ku fariistaan rakaabka sugaya in ay raacaan diyaaradaha. markii dambe waxa uu damqaday shaqaalihii airportka, waxayna dejiyeen qol ka mid ah dhismaha airportka, waxayna u keeneen dhar uu dhaxanta ka hubsado iyo kuwa uu ku labisto. waxay kaloo u keeneen raadiyo oo wararka caalamka dhageysto iyo buugaag oo akhristo, waxayna intaas ugu sii dareen cunto joogto ah oo bilaash ah. xaaladaasi ayuu in muddo ah ku noolaa. subaxii intuu soo tooso ayuu cadiysan jiray, isla markaana qubaysan jiray, kadibna dhageysan jiray raadiyihiisa ama uu wax akhrisan jiray. laakiin kolkii dambe wuxuu bilaabay inuu qoro buuggiisa xasuus qorka, laakiin qoraalkiisa ma nidaamsaneen oo maalin kasta wuxuu qori jiray wixii xaalad ah ee ku soo kordha. 12 sano kadib joogitaankiisii airportka, waxaa Mehran u yimid qoraay Ingiriis ah, isla markaana ka qaaday qoraalkiisii xasuus qorka ahaa. maadaama uu qoraalka Mehran isku qasnaa, qoraygii Ingiriiska uu hagaajiyay, wuxuuna ka soo saaray buug xiiso leh oo la akhrin karo. wuxuuna buugga magac ugu dhigay The Terminal Man, ninkii dhismaha airportka. sanadkii 2004 ayaa actor caan ah oo reer Mareykan wuxuu filim xiiso leh oo daawadayaasha aad u soo jiitay ka sameeyay buuggii laga qoray Mehran ee ahaa The Terminal Man, waxaana filimkaasi laga helay xoolo badan. Mehran ayaa xanuunsaday 18 sano kadib ku noolaanshihiisii airportka Paris, waxayna ku beegnayd goorta uu bukooday sanadkii 2006. xaaladiisa caafimaad ayaa aad u liidatay, waxayna dowladda Faransiiska ku qasbanaatay inay Mehran ka saarto airportka, isla markaana geyso isbitaalka lana daaweeyo. waxaa intaa wixii ka dambeeyay la wareegay Mehran hay'ad khayri ah, taa oo dejisay guri ku yaala gudaha magaalada Paris. hadda Mehran xaaladiisa waa caadi, wuxuuna u nool yahay sida ay u nool yihiin dadka kale ee ku nool magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska.